أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ولا ريال الله بمحله تبارك وتعالى إنه قدري إن هلكن مر لبعض يمر بدن اسكو أرجنه. waxaan insha allahu tacaala barnaamij kooban isla bilaabi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo tabaaraka wa tacaala dhowr cisho usbuucii dhexdiisa waxaanan ka warrami doonaa mowduuc ku saabsan dhismaha ruuxda iyo adkeynta qalbiga iyo kobcinta nafta. arrintaas oo laba arrimood inoo noqon doonta. waxaan qaadan doonaa darsi ku saabsan halka xuska ilaahay iyo sida ilaahay ugu talagalay inay bini aadamku cilaaqo ula yeeshaan oo ay samada ugu xidhmaan oo ilaahay ay isku bartaan oo ilaahay ula saaxiibaan oo maciyadda ilaahay ay la galaan tabaaraka wa tacaala. mowduuc labaadna waa qaadan doonaa oo arrintan la socon doonta oo la dhahdo barnaamij aan u bixinay taqwiyatu daat, qofku siduu u dhisi lahaa gudihiisa. mowduucan waxaa inoogu wacan inaan qaadanno 3 sababood daraaddeed. sababta koowaad waxa weeye waxaa ka soo baxay mushkiladan cudurkan magaciisa la dhaho coronavirus ama virus. waxaa ka ssoo baxay arrin culus oo ah baq badan iyo argagax badan, cabsi badan, nafla caarid aan caadi ahayn. arrintaas waxa ay keensanaysaa inuu qofka muslimka fahmo in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yahay almuxyi nooleeye, almumiitu dile, inuu ilaahay yahay tabaaraka wa tacaala ashaafi alxaqiiqi, dhab ahaan axadka dadka daweeya cudurkana ka qaada, alcaafi inuu yahay ilaahay ka wax caafiya tabaaraka wa tacaala. waxa kalena uu yahay asbaab loo baahan yahay in la qaato. marka darsigan arrintaas buu ka qayb geli doonaa. arrinta labaad, dunidan aan nool lahay waxaa ka talisa xadaarad ilbaxnimo magaceega la dhahdo xadaara maadiya, ilbaxnimo material ah oo bir ah. waxaa loo bixiyey shosism alinsaan, qofka bini aadanka in la shay laga dhigo, in laga dhigo xoolo laga dhigo. marka insaanku silcuu noqday, wax la kala gato ayuu noqday. xadaaradda amba maa bacda alxadaasa, ilbaxnimada kadib, xadaasada kadib, modernizationkii kadib, waxaa abuurmay waxa loo yaqaano law machine, alinsaan alaali, qofka birta ah. marka insaankii waxa uu noqday wax bini aadan aan ahayn. waxaa la dhaafay insaaniyatu linsaan, dadnimadiisii baa la dhaafay, lianna insaankii wuxuu noqday bilaa ruux. ruuxduna waa waxa qofka nooleynaysa, saan arki doono. ilaahayna quraankiisa wuxuu ku yiri wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan. allah nabigiisa isagoo la khitaabaya wuxuu ku dhahay calayhi salaatu wasalaam, sidaas daraaddeed baan kuugu soo waxyoonnay ruux, naf ruux ka imatay halkayaga oo dadka nooleynaysa. maad ogeyn islaamka hortii iimaanna muxuu yahay, kitaabna muxuu yahay, laakiin annakaa ka dhignay mid nuura oo qofka aan rabna aan ku hadayna buuri ilaahay tabaaraka wa tacaala. arrinta labaadi waa taas weeye. arrinta saddexaad inoogu wacan waxa weeyaan walaalayaal, waxaa la ogaaday cilmiyan, waxaa la ogaaday dhinaca sayniska xataa inuu qofka bini aadankii uu yahay qof haddii uu gudaha ka xoog badan yahay, gudaha ka dhisan yahay, ka adkaan kara jirooyin badan oo dibadda kaga imanaya. الإنسان القوي داخلا يستطيع أن يواجه أعداءه الخارجيين. إنسان كجودها كدسني عدو جيس الدبدة واسكعلين كريا فيرس أهايا قفك بنانك وحال رضا سو اسكو دويو اسكو معالجيو بقول كيبا كونتر وإنو آمنو إنو يهي قف إلهي كحران عم بأود بدن له وكأت كان كرا اسكعلين كرا وحيالة كسو درينيا. asbaabaha baa inoogu wacan. markaan waxaan oranay waa darsi 2 arrimood ka kooban. darsigan wuxuu ka kooban yahay arrinta ah taqwiyatu daat, inuu qofku dhiso gudihiisa, iyo arrinta ah
inuu ilaahay ku xidhmo tabaaraka wa tacaala oo sabab u ah taqwiyatu daat inuu qofku naftiisa ka adkaado gudihiisu xoog badato أحبة الإسلام ولا ليال إخواني وأخواتي رقيها ولا لها مسلمين تو وحانول نهي قرني لباتن يكو وحانول نهي عصر مادئة وحانول نهي وقت بني آدم كو أوفيليو إو إسبري إنو يهي قف وحوال باق عنتكو قابن كرا قرآن كيكو قرانتهي سورة العلق سورة اقرأ إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعاء إلهي وحو ليهي قفك بني آدمكي واقوقا وحو قوقا مركو اسبدو إنو وحوال بكمار ميكرو إلهي وحو تبارك وتعالى مركز بو إلهي قفك كسول لما إلهي با ماشا الله تبارك وتعالى إلا قمار مين مركا إن لردسو قدها ومهم تقوية الذات إن لردسو عزيمة قفك أتكيسك قفك إن لردسو صبرك قفك إن لردسو dadnimada qofka in la dhiso iimaanka ruuxa in la dhiso cilaaqada uu qofku la leeyahay Allah tabaaraka wa tacaala waxyaalada lagu dhisana waan sheegi doonaa cilmiyana la ogaaday diiniyana la ogaaday maadatan wa cilman marka ikhwaani fillah maanta waxaan si gaar uga hadlayaa waxaan isla akhrin doonaa axaadiis duruusta inoo socota iyo adkaar nabigeenu akhrinayay sallallahu alayhi wa sallam oo ku tusaysa sida uu nabigu naftiisa u dhisayay ilaahayna ugu xidhnaa noloshana uga adkaa ay noloshu ka adkaan kari weyday nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa siduu u gaarayaa qofka mu'minkii cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr mu'minka amarkiisu waa yaab buu rasuulku yidhi amarka mu'minku waa yaab maxaa yeelay waxa weeye noloshiisoo dhan baa khayra arrintaana mu'minka uun baa leh hadday dhibaato heshana uu sabraa hadduu wanaag helana ilaahay buu u mahadnaqaa tabaaraka wa tacaala mu'minku waa namuudaj alxayaat nolosha wuxuu u yahay kudayasho walidaalika buu ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muslimka ah wuxuu namuudaj u siiyey nebi sulaymaan calayhi salaam oo adduunkoo dhan gacanta ku dhigay haddana ilaahay xusayey hadaa min fadli rabbii liyabluwanii aashkuru am akfur waxaa ilaahay baa iska leh ugu itixaamayaa ma ilaahay baan ka gaaloobi mise waan u mahadnaqayaa wuxuu ilaahayna tusay nebi ayuub calayhi salaam nazalat calayhi albalaa almubiin baa ku soo degtay ilaahay buu hoos galay rabbii innii massaniya aduru wa anta arxamu araaximiin haddaba ikhwat aliimaan in ilaahay la xuso waa nolol weeye ilaahay wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala ilaahay xuskiisa isagoo ka hadlaya jala wacalaa والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلهي وحولي وادتك إلهي حصيا إن فربضا إلهي وقت لما حصو وقتنا لما إلوبو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولذلك أيها الإخوة ذكرك وحا لغوت الماما إنو كسو هرجيد إلوغا قفكو وحو حصوصنا يا الذكر وحصوصنا يا ذكر وحصوصنا يا لأن إنسان كالضبيعة ديسو وغفلة ونسيان وإلا ويا ما دام إلا إنه بدأ يهي وحان كغو هرتغينا وحصوص من حصوصنا إلهي قفكو هدو الله حصوصتنا وحو حصوصنا يا حقيقة النلشة هدو قفكو قرت حقيقة النلشنا وحو قرنا يا قيمها أو نلشة كليهي هدو قرت قيمها أو نلشة كليهينا وحو أغانا يا أود أوليهي إنسانكو ضعفا وقوة marka waxa weeye dhikrigu waxa kale uu yahay istictaaru shay fi alqalb in ilaahay qalbiga lagu soo xaadiriyo markaad ilaahay xusaysid qalbigaagaad ilaahay keenaysa alkawnu laa yasacuhu kawnku ilaahay waa ka weyn yahay tabaaraka wa tacaala ma gaari karayo bal as-samaawaatu wal-ardu qabdatuhu ilaahay baa sida u haya say u dhan yihiin yumsiku as-samaa an taqaca al-ard samadu inay dhacdo ilaahay baa xajinaya تبارك وتعالى ولكن قلبك مؤمن كأه با إلهي مركو وحصوصته إلهي داقيا تبارك وتعالى ذكرك وثناء إلهي بعد أمانيسا تبارك وتعالى بما هو أهل له وحقوق الماتك أمانيسا بما هو يستحق وحقوق حق إليه أياد إلهي كتل ماميسا أنت رب السماوات والأرض أنت ملك السماوات والأرض أنت نور السماوات والأرض
أنت خالق السماوات والأرض أنت قيوم السماوات والأرض إلهي باتكو شيغيسا تبارك وتعالى وحيالة مدنيهي جل وعلا وحويا ذكر جوا شرف إلهي با شرفيسا انت بني آدم كشيكين لهيد كشيكين لهيد كبض إيو كشيكين لهيد فيلن إيو الله باتك هالليسا إلهينا مركب أديك هالليا تبارك وتعالى من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه قفك إساقو إحسوستا أو إدكريا أو إساقو قرأ أو قفنا أوغين أنيقا إحسوستا أنا قفنا أشيغين بان حسوستا بول الله تبارك وتعالى قفك ملأ يقو حسوستا جماعة دحديدنا جماعة خير بدن إيانكو حساب الإلهي تبارك وتعالى بركو إلهي كو حسوستنا ورفعنا لك ذكرك صريبا لغو قاضيا كربا لغو قاضيا حسكا قال لوينينيا في العالمين إلهي تبارك وتعالى وحكوت الماما أم بس لغوت الماما بالذكر يقولوا يهي التخلص من الغفلة غفلة دا أيات كحروبيسا نسيان كات كحروبيسا حيوان نمضى أيات كحروبيسا ابن القيم رحمه الله يسوي الذكر كهل وحوري منزلة القوم الكبرى القوم وأهل الله وخاصته منزلة أي جارين ضدك قوم يعني معناها القوم بودي مو منزلة الأولياء منزلة الصالحين قومكو ماشي أي جارين أقص الرئيس منزلة أي جارين وينبر إلهي تبارك وتعالى وحوري التي فيها يتزودون هل كابي صحيحك سوقا تنبوري وفيها يتجرون هل كابي كوبا يعمشتران بوري ضدكو هل كابي كو ترتمان بوري بايع مشتر سوق أي فرتين ماركتك أي فرتين تكاندا أي فرتين معذاردا أي فرتين بيرها أي فلانيان هناك وهلك أبوري إلهي تبارك وتعالى أسيب وحوري يستدفعون الآفات آفات كأي مشاكل كجرا بي إلهي كوهس قلان تبارك وتعالى الله بي كوهس قلان محي كوهس قلان ذكري سي كوهس قلان مركب إلهي آفات كعليا وحوري يستكشفون الكربات dhibaatooyinka haystana iyada iskaga dulqaadaan wuxuu yiri ibn taymiya rahimahullah la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waxa ay itarto wax awnan itarin raashinka iyo acabkuuri waxayna qabataa wuxuu yiri tahunu alayhim bihi al-masa'ib masa'ib tawaaweyn ku dhacaysana iyakii ku khafiifiyaan adiga masaa'iba kugu dhacaysa adoo ilaahay xusaya oo muslima oo daakira nin kale aan ahayn oo qaafilna way ku dhacaysaa laakiin labadii naas maxaa ku kala duwantihiin mid baa gudaha ka dhisan midna gudihiisa faaruqa sidoo ilaahay yiri wa afidatuhum hawa wuxuu ilaahay laabahoogu hawada u daloolaan wax ku jiraay ma jira buu ilaahay subhanahu wa ta'ala riyaadu jannatihi ibn qayyim jannadooda beeraha ay guranayaan wa iyada نبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق ذكري نبي صلى الله عليه وسلم مركا مرتان بيرها جنة ضاقة هدافنا عنا أبا وحين كقاتا وحيدهن وما رياض الجنة وأما حي جنة رياض كيغو نحن في الدنيا الدون كان ولجونا وحولي وحلق الذكر ما أعظمه محا النبي كوين صلى الله عليه وسلم وعبودية القلب واللسان قلبك يا عربك ماشي إلهي كعبدان ويه اسكها ليلان سبحان الله عربك ليه قلبنا وحليه سبحان الله إلهي بعيبك هفا تبارك وتعالى لا وقت له وعبادة قرة وقت له ويه نعم لا وقت لهذه العبادة ذكره يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلهي وحوري إلهي بحسيان يكو سرجوغا إلهي بحسيان يكو جيجيفا إلهي بحسيان يكو فرفرديا في كل أحوالهم مركي قرية قليان الله بحسيان مركي كبحيان الله بحسيان قاديدك مركي كحيسانيان الله بحسيان مركي أي سوق قليان الله بحسيان مركي أي كلا قدنيان الله بحسيان مركي درك حدنيان الله بقشنيان لبسنيان الله بحسيان مركي أي وحبرنيان الله بحسيان مركي مسكيت كقليان الله بحسيان مركي كسو بحيان
الله بحسيان الله 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 مقع قيمة بدن حسيان جلاء القلوب قلوب تصفي ذكره والنبي صلى الله عليه وسلم قلوب تويد حليستا قلوب تويسك جودا قلوب وسخبا كرتا وما جلاؤها يا رسول الله قلوب محال قصفيا ذكر الله إلهي الله حسو تبارك وتعالى إلهي تبارك وتعالى مركا مجي سوينيسيد قلبك وينينيا جركاغا عليس نقونيا مسكحدا دسميسا نفتادا ميزانك أسو نقونيا وحاد أهانيسا إنسان إنساني قفقفة بل رباني إلهي كحرا بل ملائكي إياد نقونيسا دواء القلوب قلبك دودي سوية إمارة ذكره إلهي قلبك أيام أرتي كدغيا سدا اسم إلهي إن بري تبارك وتعالى ولا ليال ذكرك نبي وحول عليه الصلاة والسلام ما إني شيئا بخير أعمالكم عملك أغو خير بدن وأسكاها أغو صفيس بدن عند مليككم بقركينا والله وأرفعها أغو سريسا في درجاتكم درجات كآخره ليسان وخير لكم إني خير بدن من إنفاق الذهب والفضة إن بحسان ذهب يا فضة ومن أن تلقوا عدوكم والجهاد كشانوا عدوين لدقالنتان واسكعريسان قالوا وحيدين بلا يا رسول الله هاي رسولك إلهي ونوشك قال ذكر الله عز وجل إلهي الله حصو إله عزيز كأه كورية غالب كأمر كيسا كأه إمام أحمد بحديثك ورنيا حديثك وعجيب وحشاقة يا درجة أولية ذكره أريد لبعض ياب كلا وحوية نبينا صلى الله عليه وسلم ما أنتو كورميا هذه الحياة المادية نولشان برتاها نولشان شيئا نولشان قفك إيا بابورك اللي كلا جرنين قفك إيا قوري اللي كلا جرنين أيو كورميا وحول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت قفك إلهي حسيا يقف كان إلهي حسين محاول دحيا وقف نول يقف دنتن نعم إنه حي ونول يهي بإيمانه إيمان كيسا حي بتقوى لك عبس كيسا حي بارتباطه بالله إلهي بكحريه حي بقيمه فالرد أوليه قيم كيسو كنول يهي حي بعقيدته عقيدتي ستوسب كنول يهي حي بأخلاقه أخلاق دي سفي عن بكنول يهي ككلنا ميت ودسيهي حمار وي وحسد حمار كأنه لها يأكل وعنيا يشرب وعبيا يتمتع وراحيسنيا ثم ينام وساحنيا فيعود الحياة هكذا حتى يموت إلا أردمانيو فهو سدو إلهي إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا ونعمولي بل إياك أياكه سيبوري إلهي تبارك وتعالى إخوة الإيمان قفكم مركا الوليه ونوليه وحي كده قلبه سانول وديسان yahay marka wadadan qalbigiisa dhisan marka lagu leeyahay uu nool yahay waxa gartay aqligiisa nool uu dhisan yahay waxa qalbigiisa aqligiisa dhisan walidalika bu hadith sahihaynka ku jira uu nabigu ku yiri alayhi salatu wassalam ilahi hadith alquds uu ka warinayo ana inda dhanni abdi bi anigu adoonkaygu wuxuu iga malaysto baan anigu ahay buu rasuul sallam malahaagu waa maxay linakuna aqwiya si aanu xoog badanno وإن إلهي كما ليسنه أنه معنا إنه نلجره أنه يحبنا إنه نجعله أنه هو رب الأرض والسماء إلهي السماء يدرك أبوري أن نأمل إن أمل كنوينينه نقوي فيه الرجاء رجيه إن أنحوجنه وحوري وأنا معه إلهي بصداره وأنا معه أنو أدون كيغان لجرا إذا ذكرني هدو يحصو فإن ذكرني في نفسه هدو يحصو نفتيسا ذكرته في نفسي محاكوين إلهي أوكو حصى تبارك وتعالى إنه إلهي كوكو حصى في نفسك نفتيسا كوكو حصى قفنا لك حسين إلهي أوكو وينين مركات هذه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر مركات هذه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته مركات راهديد مارتي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مركات راهديد ملء ما شئت وملء ما شاء من شيء بعد
marka waxaasoo dhan akhridid markaad ilaahay weynaysid tabaaraka wa tacaala isaguna uu ku weyneynaya allah subxaanahu wa tacaala naftiisuu kugu weyneynaya wain dakaranii fii mala haddaad ilaahay ku xustid ummad dhexdeeda bulshaweyn jamaaca koox fariiq saaxiibada dakartuhu fii mala'in khayrin minhum kuwa ka khayr badan mala'i laclaa baa lagu xusayaa wain taqaraba ilaya shibran taqarabtu ilayhi diraacan hadduu ii soo socdo hal maaragtay taaka ah xusul baan usoo soconaya wain taqaraba ilaya hadduu maaragtay ii yimaado wain ataanii yamshi ataytuhu harwalatan isaga oo socda hadduu ii yimaado anuu guculaynaya yaanu imaadaa buur ilaahay tabaaraka wa tacaala ma acdamahu min rabbi saaka weyn ma jira rabbiga intaa leeg baa ilaahay baa inoo yeedhaya ya ayuha aladiina aamanuu udkuru llaha dikran kaiiran ilaahay wuxuu inaga leeyahay dadka iimaan kalow ilaahay xusa maxaan xusnaa xus badan xusa buu ilaahay subxaanahu wa tacala abu darda ilaahay raalli ha ka noqdo wuxuu oran jiray likulli shayin jalaa waina jalaa'a alquluubi dikru llahi tabaaraka wa tacaala shay wal oo ma aragtay adduunka yaalla wuxuu leeyahay buu oran jiray wax lagu safeeyo qalbiga safayntiisuna waa dikriga ilaahay buu oran jiray subxaanahu wa tacaala walaalayaal ilaahay wuxuu inooga digay 100 goor wuxuu inooga digay in badan inaan aqbalno dadka qalbigooga xuska ilaahay laga xidhay dadka kaa dhaadhicinaya adduunku waa iska yimid lacag baa wax qiimo la ah guryo la yeesho baaburo la yeesho nolosha oo hore loogu socdo unbaa nolol ah waxa kale nolol maaha dadka kaa dhaadhicin ilahay wuxuu ku leeyahy walaa tutic man aqfalna qalbahu can dikrina wattabaca hawaah wa kaana amruhu furuta ilaahay wuxuu ihi subxaanah nebi muxamedow ha yeelin calayhi salaatu wasalaam dadka qalbigooga la xidhay ee ilaahay laga xidhay ha aqbalin dikrigooga laga xidhay ee hawadiisa raacay ee amarkiisuna furatan kala baxbaxsan yahay kuwa ha aqbalin baa nebiga lagu yihi calayhi salaatu wasalaam walaalayaal ilaahay oo la xuso waa 3 shay markaan ilaahay xusayno maxaan samaynaa 3 shay baan samaynaa awalan alxamd ilaahay baan u mahadnaqaynaa liannahu khalaqanaa uuna abuuray razaqanaa uuna arsaaqay ansha'anaa uuna jirsiiyey yuxyiinaa uuna noolasiiyaa yuطcimunaa uuna raashimiyaa yusqiinaa uuna waraabiyaa hawow ina siiyey oxygen fiican wuxuu inoo diyaariyey adduun uu noo abuuray adceedda intaa leeg dhulka intaa leeg kownka intaa leeg annaku inoo abuuray sakhara lakum alleyla wاlnahaara wاlshamsa wاlqamara daa'ibayni ilaahay wuxuu yihi waxaasoo dhan ninkaan ile abuuray wuxuu ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala waaataakum min kuli ma sa'altumuuh wax kastood weydiisataanna uu ina siiyey wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ma soo koobi kartaan nicmadda ilaahay haddaad istirahdaan tiriya idan markaa maxaa inagu waajiba xamd inaan odhano alxamdu lilah ilaahay baa mahadle tabaaraka wa tacaala waa kelmadda subxaana allaahi walxamdu lilaahi tamla'aan way buuxiyaan maxay buuxiyaan maa bayna asamaa'i waalard arrinta koobaadi waa taa ilaahay oo loo mahadnaqayo arrinta labaad waa maxay waa hanaa ilaahay oo la weyneynayo hanaa ilaahay oo maya la ammaanayo waa hanaa nufni ilaahay baan ammaanaa waan u mahadnaqaynaa waan ammaanaynaa ta saddexaadina waa maxay majdun wa sharaf ilaahay baan cadamadiisa ka sheekaynaa waan weyneynaynaa tabaaraka wa tacaala saddexdan noocba ilaahay wuxuu ku ururiyey fii suurati alfaatixa bidaayadeeda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa ammaantii الرحمن الرحيم وثناغي مالك يوم الدين ومجدي إيا تعظيمك ولذلك محو النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث القدسي صلاة وحول إلهي صلاة وحانو قيبيي أنيقا إيا مؤمنك كو هدو مؤمنك يقول هذا أدونكو الحمد لله رب العالمين إلهي وحول لها يا حمدني عبدي أدونك يواي أماني هدو هذا الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي أدونك يجي kor mahadnaqay weetii hore tanna way ammaanay weeye hadduu idhaahdo maaliki yowmi ddiinna majadanii cabdii addoonkaygii waa i weyneeyey tabaaraka wa tacaala haddaba walaalayaal dikrigu waa wax qaaliya afdalu min adducaa ducada dhan buu ka fadli badan yahay dikrigu
inaad ilaahay baridid ilaahay hoos fadhiisatid ood yaa rabbi tirahdid khallisnii yaa rabbi irxamnii yaa rabbi akrimnii yaa rabbi adkhilni aljanna inaad tirahdid waxaa ka khayr badan inaad ilaahay xustid ilaahay haddaad xustid nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa xadiis qudsi ku yidhi man shaqalahu dikrii can mas'alatii acطaytuhu afdala ma ucطi saa'iliin hadduu qofku mashquul ku noqdo dikrigayga waxaan siiyaa wax ka badan kuwa ilaahay baryaya waxa uu siiyo tabaaraka wa tacaala bal ducaa ducada nafteedu waa min adikri wa ilaahay oo la xusayaba tabaaraka wa tacaala qiraa'atu alqur'aan qur'aanka oo la akhriyo afdalu min adikri bal huwa min adikri in qur'aanka la akhriyaa ka fadli badan dikriga laakiin qur'aanku oo la akhriyay isaga naftiisu waa dikri weeyaan walaalayaal dikrigu wax badan oo faa'iido ayuu leeyahay waan ka sheekin doonaa shaydaanka dikriga kaga adkaanaa ilaahay waxaan ku raali gelinaa dikriga hamiga nahaya iyo dhibaatada dikriga ka saarana san arki doono duruus inoo socota waxaan ku soo dikriga farxadda dikriga lagu soo jiidaa qofka aad ilaahay u xusa waa farxaan qalbiga waxaa weyneeya dikriga oo culays ka dhiga wejiga waxaa nuura dikriga risiqa waxaa ballaadhiya dikriga maxabada waxaa abuura jacaylka dikriga qofka muraaqabada inuu naftiisa ka adkaado waa dikriga qofka ilaahay waxa ku xidha waa dikriga qofka waxa albaabka weyn u fura waa dikriga qofka haybad waxa siiya ilaahkiisa waa dikriga qofka ilaahay waxa uu kula saaxiibo waa dikriga fadkuruuni adkurkum xusa waa in xusiye يحسون وأن حسيه إلهي تبارك وتعالى وحشده قفك إنه كلمة دريمو حبسي دريمو وحكك حيا وذكرك إلهي تبارك وتعالى ذكره وحاد أغانيسها إلهي إنه كوسو دوانيو تبارك وتعالى ذكره ومجالس الملائكة ملائكة كل فريسان إسا ذكره وحكابد بادين يا حصرة مالت قيامها ذكره ولا ريال وعبادة فضل إلهي باسداكو تلامي تبارك وتعالى ذكره ونور في الدنيا والآخرة ذكره ورأس الأمر وح لقبته وح أقصر ريويان إلهي وتلمامي سبحانه وتعالى هذا ولا ليال وحاليا هاي درسي هاسبا بلا بدونا ودرسي نوس عندنا إن شاء الله صدح لبا كبسان وكرنو وقت ونو سمين دونا وإنيسو شيء دونا وقت يابا ديار لون دونا درسي هو اللبا وتقوية القلب تقوية الذات ساجلك اللوح وغيا iyo dikrigiisa ilaahay lagu xidhma labada shay baan wadi doonaa waa darsi cusub waxaan ugu talagalay wixii kale uu noo soconaya fikirka siyaasadda dhaqaalaha la dagaalanka maartay waxa kale dhan kulbasaan oo haleelaan wadi doonaa laakiin kani waa darsi inta corona lagu jiro aan qaadan doono insha Allah taala wa mahsatihin meel kasto joogtaan waan salaamaya la soo duceeyo ilaahayna waxaan ka baryeynaa inuu maartay cudurka inaga dul qaado اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والجنون والبرص ومن سيء الأسقام وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله